bal ilaahay baan idinku dhaariyey qofka habeen dhow dadkan meesha ku leynayay ee isagoo ummadan difaacaya oo salaadii iyagoo tukadeen la laayay miyaa shahiida mise kan isaga ku soo duulay oo laga celinayay baa shahiida wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa si kula uga hadlay weerarkii al-shabaab ku qaadeen hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan weerarada kale oo ka geysteen Soomaaliya. Mukhtaar Roobo oo ay garab fadhiyeen qaar ka mid ah culimada Muqdisho ayaa sheegay in ay tahay wax aad looga xumaado dhibaatada ay guud ahaan dalka Soomaaliyeed ka geysteen ururka al-shabaab asagoona sheegay shabaab waxa ay ku dirirayaan inaysan ahayn diin waxa uu intaas ku daray in dadka Soomaaliyeed oo kaashanaya dawladda iyo culimada ay wajihi doonaan al-shabaab isla markaana taasi ay keen doonto in al-shabaab ay waayaan fursad ay ku weeraraan qaybo badan oo kamid ah Soomaaliya. ummadda meel kasto ay joogaan inay ogaadaan dantooda inay ku jirto inay midoobaan oo intaan iska dhiciyaan iska celiyaan xadiista la sheegay waad maqlaysaan qofka diintiisa inuu difaacdo maalkiisa inuu difaacdo ehelkiisa inuu difaacdo lagu dilo waa shahiid nabiga sidoo sheegay sallallahu alayhi wasallam kaasa shahiida. Roobo oo si wad hadalkiisa ayaa waxa uu yiri waxa aan leeyahay dhalinyarada shacabka kuwa aan aqaana idin soo qalday ilmahooda waxa ay ku nool yihiin nolol aad u qurux badan sidoo kalena waxa ay jaamacada ka dhigtaan xamar iyo qaybo badan oo kamid ah dalka waxayna ku nool yihiin nolol mid ugu macaan laakiin saadinka waxa ay doonayaan inay idin galshaan dabka balse yeesina qaldin waxa ay ku dagaalamayaan ma ahan diin taasna ha ka yeelinina. ninka idin soo diray qaar badan oo idin soo diray anigu aan garanayo ilmahooda Muqdisho ay joogaan jaamacaday dhigtaan dugsiyo sare ay dhigtaan nolol fiican bay ku nool yihiin ilmo ay dhaleen uma soo diraan shaqadan waxaan leeyahay baraaruga hadeer toobadkeena ka imaada ummadiina dib ugu soo laabta weli fursada jirto ayaan leeyahay. hadda waxaaba la yiri bariyahan waad qunuudayseen baa la yiri ogaa culays markuu idinku dhacay waxa roon qunuudka inaad ku dartaan ilaahay inuu idin baabi'iyo idinka naftiin. hadalka wasiirka awqaafta arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya ee Mukhtaar Roobo ayaa ku soo aaday xilli Muqdisho ay weerar ku soo qaadeen al-shabaab kaas oo qaatay in la soo afjaray in ka badan 30 saacadood. bulshada Soomaaliyeed ayaa ilaa hadda waxay isweydiinayaan kooxda in ka badan 30 saacadood ka dagaalamaysa hotel Xayaat halka ay ku dambeeyeen nolol iyo geeri.